wafdigan oo ka kooban wasiirada wasaaradaha caafimaadka iyo waxbarashada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Garowe ayaa lagu soo dhaweeyay deegaanka Dacarre oo 20 kiiloomitir u jirta deegaanka Kalabayr. Mas'uuliyiintan ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay gudoomiyaha deegaanka, odayaal iyo waxgaradka deegaanka, waxaana loo sameeyay qada sharaf lagu maamuusayay. intaa kadib mas'uuliyiinta ayaa waxay si wada jira xariga ugu jareen xarunta caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Dacarre. gudoomiyaha deegaanka Dacarre Cabdinuur, gudoomiye ku-xigeenka degmada Garowe Maxamed Xamari iyo xildhibaan Cabdisaaq Dheere oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa ka hadlay faa'iidada ay bulshada u leedahay xaruntan caafimaad. wasiirka caafimaadka waxaan leenahay meeshaan waa rugtii caafimaadka ee tuulada Dacarre waa u jeedaan xariga ka goyseen labada qol baa ka dhisan gabdhihii ka shaqeynayay dawadii waad aragteen laba qol baa ka dhiman kii jiifka iyo kii umulisada insha Allah iyadana waa heli doonaa hadda dhismaheedana waa u jeedaan warbixinteena wayna siinay wasiir halkan waxa weeye xarun caafimaad health post taasoo muddo badan lagu hamiyay sidii loo gaari lahaa yoolkeeda alxamdulillah waxa inoo dhisan laba qol iyo labadooda suuli barandadii iyo daawadii inoo taala oo wasaaradda caafimaadku keentay inta waa lagu mahadsan yahay wasaaradda caafimaadka oo taageerada farsamo ahaan iyo tala ahaanba ku taageertay aad bay u mahadsan yihiin daawada ay keeneen waa ku mahadsan yihiin tababarada shaqaalaha tuulada oo bilowday dhismaha aad bay ugu mahadsan yihiin iyaguna iyo degmada oo ku kabtay qol dheeraada oo qayb muhiim ah ka qaadatay in xaruntan hirgasho way mahadsan yihiin wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa sheegay in wasaaradahan ay dhameystiri doonaan baahiyaha kale ee caafimaad ee halkan ka jira. waxa wasaaradda caafimaadku ballan ku qaaday inay dhameystiri doonto haddii Ilaahay idmo hadday noqon lahayd shaqaalaha xarunta mushaharaadkoodii sidii loo joogtayn lahaa dawooyinka tababaradoodii iyo wixii qalaba ee ka dhiman haddii Ilaahay idmo wasaaradda caafimaadku waxay ballan qaaday inay dhameystiri doonto haddii Ilaahay idmo si xaruntani ay u noqoto meel ku filan adeega caafimaad ee u baahan tahay tuuladan Dacarre oo tuulo ku xiran miyi fara badan oo hareeraha ka xiga lana filayo inay noqoto tuulo ballaaran dadkuna ay sii bataan isla markaana taasi kalifi doonto in loo baahdo in xaruntanina ay sii weynaato wasaaradda caafimaadkuna ay diyaar u noqoto inay qayb ka qaadato haddii Ilaahay idmo. sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo ay weheliyaan wasiirka caafimaadka Puntland iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa dhagax dhigay dhismo ka kooban 2 qol oo deegaanka u noqon doonta goob waxbarasho. maamulaha iskoolka deegaanka Dacarre, gudoomiye ku-xigeenka degmada Garowe Maxamed Xamari iyo qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa ka sheekeeyay baahida waxbarasho ee ay bulshadu u qabaan. iskoolkan wuxuu furnaa muddo sanada heer buu soo marayay maalinta ka dambaysa heer buu soo marayay ardada halakan dhigata waa 2 fasal weeye ardada primary-ga oo xadaanada iyo ardada fasalka koowaad tiradooduna waxay gaaraysaa 60 meeyo meelaha waxaynu raadinaynay inaynu helno arrimo bulsho maadaama aynu caafimaadkii helnay kii waxbarashadana aynu helnay oo hadda inoo dhagax dhigay aad baan wasaaradda waxbarashada ugu mahad celinaynaa. anagu waxaan u maleynayaa safarkan waa safarkii afraad ee aan halkan ku nimaanay xildhibaanadayada wax kalena ma ahayn waxaan u qareemayna deegaankan oo aan arrimo badan ka wadnay mira dhalkiisiina runtii in badan oo ka mid laga soo jawaabay wasiirka ugu dambeeya hadda waxbarashadu uga mahad celinaynaa in dadkan ay helaan waxbarasho. annaguna waxay ahayd habkii naloo ku xulay xildhibaanada deegaankan ka soo jeeda inaan waajibaadkayagii dastuuriga ahaa aan ka gudanno aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadkiinan dadaalay ee reer Dacarre ee deegaankan quruxda badan soo camiray waxaa laydinka rabaa macallimiintii oo wasaaraddu soo magacaabayso inaad soo dhoweysaan. iskuulka horey buu u shaqaynayay oo dugsi quraan ayaa lagu dhigayay iskuulka maantana waxaa nasiib u yeelannay in la dhagax dhigo iskuulkii dhammaan miyiga ku xeeran ardaydu way joogtaa iyagoo aan waxna baran
xoolaha kaliya la jooga laakiin maanta fursad waxay u heleen iyagoo xoolahoodii la jooga inay qalinkoodii iyo buuggooda qaataan oo ay isku wataan xoolahoodii ilaalintiisii ama xoolaha ilaalintoodii iyo waxbarashadiiba waa fadli alle subxaana wa tacaala waa runtii waa guul weyn oo ay Puntland ku tallaabsatay in dadkii ka fogaa magaalooyinka waxbarashada la gaarsiinayo iyo caafimaadka. wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa sheegay in sanad dugsiyeedka cusub qorshahoodu tahay in dugsigan maanta halkan laga dhex dhigay uu shaqeeyo. waxaan dhagax dhignay 2 fasal oo cusub oo aan ka dhisayno tuulada Dacarre oo ka tirsan degmada Garowe. labadan fasal waxaan rabnaa insha Allah in baahidii waxbarasho ee deegaankani uu qabay goob uu wax ku barto uu kaga bixi doono sida ugu dhaqsaha badan baana loo bilaabi doonaa. waxaan isleeyahay bisha 7 haddii Ilaahay idan ka dhigo waa la bilaabayaa. qorshuhuna waxa weeyaan sanad dugsiyeedkan cusub in lagu barto wax. Shamakaad Qaadir Jaamac warbaahinta dowladda Puntland Garowe.